heegan buuxa ee dadka soo jeeda ayaa xilligan laga soo warinaya gobolka waqooyiga dalkaasi Suudaan ku yaala. dadku waxay dhahay ku hayaan cirka iyo waxa ku soo hooban doona siiba gantaalka Shiinaha laga digay inuu Barito subax ku soo dhici doono laba deegaanka waqooyiga dalka Suudaan. guddiga federaalka ee xaaladaha degdega ah ayaa ah isha kaliya la socodka warbixintan ee ku saabsan gantaalkan inuu ku soo dhici doono waqooyiga dalka Suudaan. xogaha caalamiga ah ayaana ishaaraya in cabsida ugu weyn inuu gantaalkaasi ku haban doono waqooyiga dalkaasi Suudaan haddii uusan isbedelin jihada uu ku duulay gantaalkaasi. safaaradda Shiinaha ee ku leedahay dalka Suudaan ayaa beenaysay wararka ku aadan gantaalkaasi ku soo wajahan yahay dalalka waqooyiga Afrika ee ku jirta dalka Suudaan. warbaahinta dalka Suudaan oo soo xiganaysa safaaradda ah in la xakameeyay gantaalka ay khubarada Shiinaha si buuxda gacanta ugu hayaan dhaqdhaqaaqa gantaalkaasi culayskiisu dhan yahay 21 tan. Mareykanka ayaa war cusub ka soo saaray dalka uu ku wajahay gantaalkaasi ku soo foolay dhulka. dhinaca kalena ilo militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaalka Shiinuhu jihadii uu bedelay lana filayo inuu ku dhaco mid ka mid ah dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Asia. ilo militari waxa ay sheegeen in suurtagal tahay in gantaalka Shiinaha ee Langa March 5B Y2 uu ku dhici doono dalalka Kazakhstan iyo waliba sidoo kale Turkmenistan. abaar 7 ilaa 7 barka fiidnimo xilliga bartamaha qaaradda Asia, abaar 11 barnamqanimo ee xilliga magaalada Washington ama 3 barka saqda dhexe waa bariga Axad ee magaalada Dubai. ayaa la filayaa in gantaalkaasi uu ku habsado mid ka mid ah labadaasi dal sida ay sheegeen waxda la socodka saadaasha hawada dowladda dalka Mareykanka. gantaalkan ayaa hore loo sheegay in dowladda dalka Shiinaha inay u gantay hawada sare, laakiin markii dambe Shiinaha ayaa sheegay in gantaalkaasi farihiisa uu ka baxay xawaaraha saacadii wuxuu jarayaa in ka badan 28 kilomitir. laakiin dadka ayaa sheegay in gantaalkan ilaa haatan ku maqan yahay hawada lama oga sababaha ka dambeeya dowladda dalkaasi Shiinaha inuu gantaalkaasi gacantooda kontroolkooda uga baxay. Mareykanka ayaa sheegay in saacad walba ay la socdaan halka uu maray gantaalkaasi, laakiin waxa ay beeneen inuu ku soo wajahan yahay waqooyiga dalkaasi Suudaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier